daba yar ninkan tegin ma asaa magaalo joog ahba. maqaayadan waxay ka mid tahay maqaayadaha ugu cimriga dheer ee magaalada Muqdisho ku yaalo. Ku dhawaad waxay shaqaynaysaa 40 sano. waxayna caan ku tahay cuntooyinka dhaqanka, khaasatan cuntada muufada loo yaqaan muufatinaar. sidoo kale iyadoo loo isticmaalayo hab casri ah amaba hab dhaqameedkii rasmiga ahaa ee la yaqaan. waxa meesha ay wacduntay saaxiibtay Dr. Aisha oo deegaanka ah. waxaan rajeynayaa bal cuntooyinka dhaqanka ee u leena Soomaaliyeed iyo sida loo adeegsado, sida loo isticmaalo inaa ila daawataan insha Allah. muufadii iyo kalaankalkii jileec ahaa, sidoo kale kan waxaa waa basbaas qofkii jecel. dhalooyinkii hore waaye oo la aruuri jiray. kuley aniga zaid mar hore ayuu ugu dambeysay. caashana waatana ayadana عشان والله أنا قرب ودي بيسي فانتظر قرمي وقدم بيس والله وحام لي أنا ما حسيتها مكسين أنا دكسيري الدكور مكي سوي حسي ها وصلت أنا طلبوا كلك بحي وارس كانوا رجلي سؤالي على أنا واجبي هاي على أنا طلبوا ذا جبس يعني طلبوا قد عصيرك ها طلبوا ذا طلبوا أفر كنا على يارا بيتكينا طلبوا أفر مو في صيرة جيب متقنع مو فضها في استعمالنا ما هو جبس كده بوني هاي اوكي نو بلاو مارس قلابا صح muufadan jajabiskeeda ayaaba waxay u baahan tahay xirfad kale oo gooni ah iyo maareen kuleelkeeda baasha iyo inaa gacmaha qaboojistid sida saxdaan baasha u jajabisid. فراك قدير فراك دب لي عنك طبلات عزومات عجيب اي عند رقمات ماشي قشو ولا قشة كينا بالوقت بلصة أنا أوكتانو يا مو فلان أوكتانو ماشي لا يستعماله وانكفرت ما بلك muufadan caafimaad ahaan waxyaabaha ay ka samaysan tahay waxaa waaye galey qolofteeda leh. caafimaad ahaanna waxa ugu wanaagsan waaye oo dadka inay isticmaalaan. qofka calooshiisa way socodsiinaysaa, tamar badan ama energy badan wuu ka helayaa. sidoo kale jirkiisana wuu ku dhismayaa. dadka badana muufadan isticmaalaanna waa laga dareemayaa jirkooda inay cunto nafaqo leh isticmaalaan. saa u jeediin baasha aadaa loo burburiyey, aadaa loo yaryareeyey. waxaa la rabaa inay sasoo kale budo oo kale ee u daadato. kadibna waxaa loo isticmaalaya maraq aad biyo u ah, macsaro saliidda macsarada ah ayadana aaday lafaha ugu fiican tahay iyo caafimaadka. maraq waa u jeediin saasuu u dareerayaa. waxaa la rabaa maraqa aad inuu lafaha uga dhexgalo muufada. iyo hadaa ku cunaysid hilib ama malaay kii aad dooranaysid. waa kaasaa muufo, macsaro, malaay, moos aa laisku dhahaa waa wadama. iyo liin dhanaan badanna waa lagu cunaa. hilibka hadda saliiduu lahaa, anaga saliidaas ma isticmaaleynin. waxaa maadaama macsaro aa isticmaalnay, hilibkoo keliya ayaan korka kaga darsanaynaa.
waxaa ku darsanaynaa moos kadib waa la isku rifaaqayaa. haddaad jeceshahay mooska dadka gooniya ugu cunaan, laakiin sida saxda waxaa dhan waa la isku wada qasaa, waa la isku jijiminaa. barnaamijka ama videoga markaa bilaabeynay kow gacmaha waa iska soo wada dhaqnay. meesha waxaa yaalo oomo iyo waxyaabaha gacanta lagu dhaqdo si fiicanaa usoo dhaqanaysaa. dadka qaar waxaa laga yaabaa inay ka ashashaan, dadka qaarna waxaa laga yaabaa inay aad u xiiseeyaan. waxaa waaye qofka shakhsiyadiisa iyo wuxuu jecelyahay ku xiran tahay. dadka muqdisho joogo dadka ugu badankood maqaayadan way yaqaanaan. daba yare aa la dhahaa ilaa waagi siyaad bare ilaa dowladdii ay shaqay jirtay. liin dhanaantana aadaa ugu badsanaynaa maasha allah cajiib. cabitaankoodana waa kaasaa rasiin waaye, cambaa dalbanay kii horsiisin uu ahaa. maqaayadan waxay ku fiican tahay waa loo wada sameyn yahay, taajir iyo faqiir iyo dhexdhexaadba waa laga wada cunteeyaa. qof walba wuxuu xiiseynayaa cuntadaaseeta oo dhaqanka u leenahay oo nafaqada badan. aadaan kaga mahad celinayaa daawashada muuqaalka. si qaas ahna waxaa ugu mahad celinayaa saaxiibtay qaalida ah Doctor Caasha. mahadsanid.